maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in la joojiyay lacagihii caymiska ahaa ee lagu soo rogay wadayaasha gaadiidka ee magaalada Muqdisho xilli ay dhawaan cabasho ka muujiyeen isla markaasna ay sameeyeen banaanbax shaqo joojina waa kan afayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo arintaasi ka hadlaya waxaan rabaa inaan sheego waxay ka cabanayeen oo ahayd caymiska waa la hakiyay wala tixgeliyay codsigooda iyo isku soo baxooda arrinkaasna in la hakiyaan rabaa caawina idin sheego dhanka kalena wadayaasha basaska iyo bajaajta ayaa arintaas soo dhaweeyay isla markaana sheegay inay ku faraxsan yihiin xilli ay la hadlayeen TV-ga caalamiga ah waa bari sideedaba dawladdu sharci bay leedahay sharcigeegana cid ka hor iman kartaa ma jirto laakiin anagu hadii bajaaj ay tahay bajaaj ama wixii yaani cashuur oo dawladdu ay leedahay oo iyadu ay nagala xisaabtamayso diyaar baan horta una laakiin wixii loogu soo daba gabanay sida insurance oo kale qolo insurance oo ayadu madax banaan oo dawladda ka madax banaan oo niman ganacsada sideedoo kala in madax lagu soo qabto oo la yiraahdo waxaan labada lugood igu xidhaynaa nimankaas inaad insurance-kooda bixisaan Sucaad Ciga Jaamac waa Bari TV Muqdisho